بسم الله الرحمن الرحيم runtii dad badan baan rabay inaan salaamo laakiin waqtiga dheer awgeed iyo aniga qudaydo exhausted noqday waxaan u maleynayaa xoob badan waan ka boodayaa hase ahaatee wasiir cali oon baryahan shaqo wadaag aada lahayn arrimo Soomaaliya ku saabsan I like to recognize him saaxiibkay Cabdisamed Nuur Bidaar oo مرة معلنا نقولها سخاودين مرة نكبده ذا عياري كرني سجنا إنسوا معصومي وحن ربعنا confusion يذكر إذا حاجة ده سيدنا السيقط قديم من كلا أو سناق فديو سجار ليرا ورنتي ما تلاقي براي كمباني جيسة $multi-million كمباني سليمان علي of course نك هذه شيء سومالي ده positive narrative كشيء عبد السلام أو وده تقانان I like to recognize him why stories make difference شيء كذا لقى شيء عاود بينو داوريني impact بيلاده وحنشعله كلياتون بل واحد مدة عاوين رنتي قروح ذا وناقة دو مركز الصوماليات لقى شيء كي مركا in my own إن أنا بلير تابتو أيضا ولي أريمان تابان أيه وقيحيو قفك الصومالي وحويه نين ريتشارد بارتن سر ريتشارد بارتن لورنشري أو first footsteps in East Africa قري با حبل الصوماليات لكلنا 1850 ميلهاس مقالة عدن وحقوه الرئيو وحبلها الصومالي دا كنت المامي أسوأ اندرمان إيو هندي إيو ميلا بدن صومري قروح ذا إيو نظافة ذا إيو أونسيغا أيو كنت المامي ويرواي unique woman تقال كي لبادي الدنيا ذا مركي ومدى الصوماليات لقى قايبيني با ايزنهاور ومدحوينها أمريكا كاها با مركا أرنت إثيوبيا دول كيني اللي بحيني إحساس مركا مقع الصومالي بمقلي مكسور هو دي صوماليس أول لا أدلو مبريف كرين إنك إيركا هاي وشقيني بدكت وقبت كودي Somalis have the most beautiful woman on earth مركا وكوسا يرشيد سدي أنا وصي وتا ثيم كدو مركا الصوماليات إيه وناقودا مركي civil war كدعي وبوش ربي إنه أسكر صادره بانين سفير وها أمريكان كفورتس إيه فيفتس كي فدي شري كينيا وقت يجوميسيا باوحو يري قبل الصوماليات مركا أي وقت في عنها يسطو نبدأ لقاها لي قبل الصوماليات مركا أي وقت في عنها يسطو أو نبدأ يسطو حرقة قبل الصوماليات إيه حربة لافيا توركا لباحو واسكوميت بودي runtii waan sii wadi karaa laakiin waxaan jeclahay inaan mawduucayga u boodo quruxdaas way leeyihiin wiilka Soomaaliga qudhiisu he has his own unique characteristics bug la yiraahdo African students in China oo 1966 oo qorin min Ghanaiana ba ardada Afrikaanka ee Shiinaha ku nool dhibaato weyn kala dhaxtaalay ninkaas wiilka Soomaaliga oo keliyata baanay ku dhici jirin qolada Shiino ama hadal xun aanay ku oran jirin maxaa dhacay tooribu hoosta dhigan jiray furaashkiisa so inkastoo madowga ay dhibaan Shiinuhu laakiin ninka Soomaaliga way ka yar gaabsan jireen I think waxaan sharaxi rabaa oo inagii Mareykanku aan wadaagnaa waxyaabo la yiraahdo exceptionalism the American exceptionalism the Somali exceptionalism qofka Soomaaligu characters gaar u leeyahay xaragu lahaan jiray inkastoo hadda inaga yarna qustay laakiin dumarkeena ku sii hadhay qab lahaan jiray what you can call raw native pride aan cidna loogu soo gaban anigoo inta kaga baxay runtii waxaan aad iyo aad u jeclahay caawa inaan u mahadnaqo dhalinyarada iyo bulshada isku soo dubariday arintan outstanding-ga ah
oo runtii noqon doonta a landmark meel laga amba qaado waxyaabaha dambe ee bulshadeenu samaynayso because images make difference kolba image-ka aad adigu iska samayso baa wax lagaaga qaataa marka image-kan iyo fakarkan iyo sawirkan caawa Soomaalida laga bixiyay a beginning but a very good beginning waxa mahadeed le Maxamed Daar Abdullaahi Cabdi Xaashi iyo Farxaan Jeyd oo runtii si fiican arintan iyo xoog badan iyo karti badan iyo arrimo badan geliyay marka runtii waan jeclaa inaan dad badan sheego laakiin waqtigan ii saamaxayn Soomaalidu ma kala maaranto I believe Soomaalidu inaanay qabiil ahayn xataa idni group aanay ahayn Soomaalidu waa family extended family Jamaal iyo Abdisalaam baa waxaan uga sheekeynayay 1986 anoo Soomaaliya ku socdo Muqdisho oo qof Mareykan wada socono waayo Women Decade Conference baa Nairobi ka dhacay baa Hiltonka markaan ka soo baxnay baa waxaan ku yidhi Somali neighborhood baan ku tusaya because yaraantaydii isliib aan maqli jiray she was an American mixed marriage ka dhalatay qudeedu markaan Hiltonka downtown-kii Nairobi marayna baa qof aan Soomaali u maleeyay baan arkay waxaan ku yidhi Soomaali waa tahay markaasuu yidhi haa ninkaagan qadeey xageed ka timid oo Mareykan ka imid walaal isliiseen u tagabaani ayaa weydiiyey uu hor kacay meeshii baska laga raacay buu na tusay wuxuu ugu yidhi meesha uu baskaas ku dhamaado makhaayada uu istaago waa Soomaali ninka waxaan ku yidhi waad mahadsantahay ninka wuxuu qoyay wuxuu waad mahadsantahay warde noo dhib oo waa xasuustay waa runta baan iyo 100 shilin oo waqtiga joogtaan u dhiibay inantii waa yaabantahay inantii Mareykan waxay leedahay ninkii miya la handadaya ma baad baa laga qaadaya intuu soo eegay buu waa noo dhib bahasha marka 300 maraya baan ku yidhi bas sidii mowta ari carbeedkii markuu si fiican u duuduubay 300 la barigaas waa salariga askariga 1986 baa wuxuu yidhi inaan istooyane tabliishe waa riixay waxaan ku yidhi nin jijiga ku dhashaanahay reer jijigaanahay waar jijiga anaga naqaaneen wuxuu riixaba runta idin sheegayay waan u sheegay xabadaa ka yimid intuu gacmaha kor u sheegay buu yidhi ma anaan garan maanta oo dhan jirka ay dubaaxanayo aniga may taqaanaa masaan ku yidhi may markaasuu nin ii sheegay la yidhaahdo Cali Burco oo nisku xaafadahayn oo walaalkiisa oo isagu originally Burco ka yimid bimacna ninkii waxaan noqonay min 4-5 different marriage intersections baanu yeelanay I have never met a Somali anani soqoon ama meel anani iska gelayn we're not even a tribe we are a very extended family 6 milyan oo 3 milyan oo hadda badatay because of fertility iyo inagoo active badisay mooyee we are a family and sidaas darteed I think in aynu narrative-ka inaanay Soomaalidu xataa ethnic ahayn because ethnic dadka lagu leeyahay gudahooda waxa ku jira qabiilad aan isku afahayn qabiilad kala duwan we have issues laakiin dad waxaynu nahay isku mid ah Soomaalida aan Mareykanka hadda joogno waxaan u malaynayaa 1981 anigoo intaan markaa Mareykanka imid 7-11 ka shaqeeyay UCLA na application sugaya buu nin congressman yimid wuxuu ugu yidhi interview markaa iga qaadayay wuxuu ugu yidhi how do you find America sideed America u aragtaa waxaan ku yidhi runtii waa meel aan ka samayn karo nolol laakiin ismaan lahayn 100,000 oo Soomaaliya baa Mareykanka soo degi oo siyaasiyiin yeelan inventories yeelan congresswoman yeelan the first Muslim congresswoman in the history of America bimacni taariikha ayaynu samaynaynaa runtii taariikha ayaynu samaynaynaa weli Mareykanka aan la arag we are making impact laakiin Mareykankuna impact bay nagu samaynayaa waxa markaa muhiima how do we recognize impact-ga aan Mareykanku samaynayno oo markaa aynu ku faa'iideysano waxyaabaha runtii aan
marmar yar saluuga on isiraahdaa Soomaalidu sidan way dhaami lahayd. There's no other African community meesha aynu ka gaadhnay within a short period of time ka gaadhay. Ethiopianku 1920s kii bay yimaadeen, 1930s to 1940s scholarship yaa la siin jiray, 1950s 1960s Maraykanka u tagay oo xataa meelo waaweyn ka samaystay. Inagu 1990 baynu si buuxda ardada marka laga reebo 70s kii timid si buuxda waxaanu nimid 1990s kii. You can see impact aan ku yeelanay. That is because of the nature of the Somali. And runtii wax joojiya aan jirin. nin la oranayay Jamal Valley oo economist ah oo Egyptian baa wuxuu darsay East Africa refugees iyo displaced person. Just give me 1 more minute, 2 minutes. Baa wuxuu darsay, because I want to really shed a light of what's good and great about Somalis. wuxuu darsay qaxootiga iyo displaced persons. World Bank uu shaqayn jiray. wuxuu arkay dadka Ethiopianka ee 1984 kii abaarihii ku 70s kii ku barakacay oo qaxootiga ku dhexdhalay oo meeshii haddana ciyaalkoodii ku guursadeen oo meeshii ku jira. wuxuu la koombeergareeyay Soomaalida Qoryoole iyo Jalalaqsi iyo meelaha qaxootiga. reerkii uu daraatoole surveyga ka qaaday 7 bilood markuu soo noqdo ma joogaan, waa baxeen. kuwa joogaana dukaan iyo makhaayad bay ka furteen intay wixii yaraa isku uriyeen. conclusion buu gaadhay, Somalis are entrepreneurial, waa inventors sida la sheegayay, waa dad runtii leadership noqon kara. I think waxaan aynu maanta samaynayno ma aha wax si dib yar ku yimid. It's thick in the nature of the Somali. waxa kaliya oo ku soo gabagabaynayaa, I have my conclusion. waxa kaliya oo ku soo gabagabaynayaa, can Somalis translate their achievement in the United States of America to better their home country? That's really the point. Herman Cohen, or Under Secretary for Africa Affairs ahaan jiray 1990s kii baa shir nagala qayb galay. wuxuu nagu yidhi, you guys have the skills of some of the most powerful communities in America sida Armenianka iyo Jewishka, but you lack one item. You don't lobby the way they are lobbying. haddii aynu loobi ku dari lahayn kartida aynu tusnay oo maanta Maraykanka iyo cid kastaba og yihiin, waxaan u malaynayaa not only will we save inagu kaliya tismayna nabadgeliyeen dalka Soomaaliya wherever they including Djibouti oo dal Soomaaliyeed waxbaynu qaban lahayn. marka waxaan rabaa bal inaynu dib isugu noqono. I am very proud of the achievements iyo awards kala bixiyay. I hope we take it from there. Thank you very much.